Assalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaalkeena oon kusoo qaadanayno nooca labaad ee noocyada shallow foundationka waxaana loo yaqaanaa wall footing ama strip footing ama continuous footing waxaana magaca isaga ayaa iska leh. Marka waa maxay marka strip footing waa maxay? Strip footing waxaa inta badan loo isticmaalaa foundation ahaan okay as ahaan ayaa loo isticmaalaa markii aan ka hadlayno load bearing walls okay structure-ada sidooda laba loo qaybiyaa load bearing structures iyo frame structures. Frameka waa kuwa kolomyada iyo beamyada waxaas ka kooban waa okay frame waaye okay beam iyo column oo la isku geeyay frame aa la dhahaa. Load bearing wallskana waa derbiyo awood u leh inay culays qaadaan okay marka wuxuu ku leeyahay waxaa loo isticmaalaa foundationkan load bearing walls okay haddii laakiin waa groundka ama dhulka haddii uu yahay mid ku habboon iska caabinta culeysyada okay oo macnaheedu waxaa laga jeedaa dhulka yani awoodiisa way fiican tahay dhulka dhul adag oo u adkeysan kara culeysyada lasoo saaro ama xamili kara waaye sidaas u fahan marka waxaa lagu dhahaa waa wax caadi ah lagu dhahay marka laga hadlayo strip foundation in loo isticmaalo low to medium rise residential building guryaha deegaanka ah ee gaaban oo tusaale ahaan oo kale qaybta hoose keliya ah guri villa camal ah markii laga hadlayo ama medium rise guri hal piano ama laba piano oo kale ah waa loo isticmaali karaa okay sida yacni inta badan aan arkana laba piano wixii ka badan waxa waaye kuma haboono footingka noocan oo kale ah. Concrete strip marka waa qayb strip ah yacni concrete strip waa qayb waa saan oo kale stripkan oo kale strip waxaa la waa qayb concrete ah waaye sidiisa dhanba qaybtaas concrete-ka ah le waa wax celinayo oo aas-aaska u ah okay ayaa waxaa la socodsiinaa lagu dhahay the entire wall length okay derbiga waa kanaha okay derbiga waa kana derbiga waa dheri hadda section ah meeshan waa jaran tahay okay meeshan way jaran tahay laakiin derbiga wuu dheri waa continuous so marka qayb shub ah oo qaybtan aas-aaska ah ayaa waxa ay la soconaysaa dhirirka derbiga intuu dhirir la egyahay la soconaya okay in isla fahana ayaa rajeyna marka maxay qaybinaya marka derbiga qaybtan concrete-ka ah oo aas-aaska u ah derbiga waxay qaybinaysaa oo ay baahinaysaa loadka ka imaanayo wallka derbiga ka imaanayo ayay ciidda geynay ku faafinay macnaha okay marka tani waxay ziyaadinaya lagu dhaha marka stability-ga okay waa guri xasilin inuu yahay oo wax movement ah noocu raba ahaadaba aan sameynin ayuu noqonaa marka sababtaas darteed waxaa la rabaa marka widthka foundationkeena uu yeelanayo tusaale ahaan derbigana width ayuu leeyahay okay width ayuu leeyahay sidaa ujeedid so foundationkana sidoo kale width ayuu leeyahay isagana okay marka maxaa lagu dhahaa marka warka meesha muxuu yahay widthka foundationka uu yeelanayo waa inuu ugu yaraan noqdaa 3 times the width of the wall saddex jibaarka derbiga widthkiisa inuu noqdaa la rabaa yacni widthka foundationkaada waxaa la rabaa inuu noqdo saddex jibaarka widthka derbigaada okay meelaha qaar laba jibaar ay dhahaan okay so marka xaaladaha qaar marka strip foundation hadda waxaan soo aragnay inuu derbi celinayo okay waana common taasaa common oo lagu yaqaana laakiin waxaa lagu dhahaa caseska qaar waxaa laga yaabaa inuu support gareeyo series of closely spaced columns okay yacni column isku dhow sidaan oo kale fiiri column-yadan row waa okay row waa saan u wada jooga so marka column tiro badan oo safan oo isla socdo isku dhowna sidoo kale wuu support gareeyaa in some cases xaaladaha qaar wuu support gareeyaa okay marka wuxuu ku dhahaa haddii carradaada ay awood celinteeda ama awoodda ee culeyska isaga caabinaysa ay yar tahay waxaa u baahanay ama laga maarmaan noqon doono in yacni la isticmaalo comprehensive strip foundation yacni waxa waaye strip foundation aad looga taxadaro okay oo faham fiican laga haysto soil conditionka iyo waxoo dhan inta la fahmo in strip foundation yacni ku habboon in loo fikiro oo lagu ayaa ku habboon meeshaas okay marka wuxuu ku dhahay xaaladaha qaarkood waxaa u baahanay wax ka badan yacni plain concrete plain concrete waxaa la lahaa shub aan bir wadan okay plain concrete la yiraahdo so marka wuxuu ku leeyahay halkii aad ka isticmaali lahayd concrete keligiis waxaa u baahanaysaa reinforced concrete inaad isticmaasho oo shub bir wato inaad adeegsata ayaa ku qasbanaanaysaa marka noocyada continuous footing ama strip footing marka laga hadlayo dhanka propertieska based on properties marka laga hadlayo laba loo qaybiyaa nooca koowaad waxaa la yiraahdaa deep strip footing okay marka foundationada stripka laga hadlayo kan waa kan ugu caansan uu ku leeyahay okay sidoo kale waa mid qiimo jaban ayaa lagu leeyahay oo aan yacni kharash badan ku gelinayno okay kaasoo loo isticmaalo marka carrada ay yacni soil conditionkeeda macnaha marka ay tahay mid fiican okay wuxuu ku leeyahay marka reinforced concrete strip waa yacni strip ama qayb concrete ah oo bir wadato ayaa inta badan waxay support gareyn ama celinaysaa derbiga okay oo ay support u noqonaysaa ama asaas u noqonaysaa marka wuxuu ku dhahay trench waxaa la lahaa godka loo diyaarinayo loo qodo okay derbiga kale hadda markaa rabto inaad asaas u samayso waxaa ku qasban tahay kana marka waxaa la yiraahdaa derbigaas loo qodayo waxaa la yiraahdaa trench okay so marka wuxuu ku dhahay marka taranjaha ayaa wuxuu noqon karaa any depth kasta ayuu qaadan karaa okay
laakiin wuxuu ku leeyahay inta badan يعني shuruucda dhismaha ee wadan walba u degsan ay ku xiran tahay okay so marka depth kastoo noqon karaa marka lagu yiri waa laga daba tago waxa la yiri ugu yaraan waa inuu noqdaa depthgiisa 40 inch okay 40 inch ayaa la rabaa inuu depthgiisa ugu yar uu noqdo dhinaca kalena waxa la rabaa inuu noqdo oo dhinaca widthka ah waxa la rabaa inuu noqdo ugu yaraan 24 inch okay marka waa inaad iska fiirisaa marka depthga waa inuu noqdaa 40 inch okay widthkiisana waa inuu noqdaa 24 inch okay concrete marka inta la shubayo godka waa isla fahanay balciisi iyo depthgiisa intuu noqonaa waa isla fahanay shubka marka inta la shubayo waxa ugu yar depth 9 inch okay depthga ugu yar ee shubkaada uu noqonayo waa inuu ugu yaraan noqdaa 9 inch okay nooca labaad waxa la yiraahdaa broad strip footing noocan inta badan waxa lagu arkaa oo ku dhaha goobaha ciideedu ay awood daran tahay awoodeedu ay yar tahay okay marka wuxuu ku dhahay poor quality soil carrada tayadeedu ay poor tahay ama ay hooseyso ayaa waxa aysan ku ogolaanaynin inaad sameyso regular strip footing yani strip footing ka caadiga ah anaga aan naqaanay ma noo ogolaanayso inaad sameyno okay inaad sameyso marka over widening oo ah inaad balac aad u weyneyso si zaa'id ah oo caadiga ka baxsan sidoo kalena depthga ama cumqiga inta hoos u qodanna aad u dheereyso adoo ka fogaanaya markaas demolition of walls darbiyada inay dumaan yani darbiyada inta iga dumi lahaayeen balacan zaid u weyneyna ama depthigana hoos aad u badana hadaa tiraado wuxuu ku dhahay economical ma aha oo wax lagu qanci karo economical ama dhaqaale ahaan wax loo aan cudur daara kara ma aha okay so marka waxa la rabaa balaca kaliya ina macni meel macquul ah ina ka dhigto laakiin over widen hadaa sameyso qarashka uma fiicna okay marka wuxuu ku dhahay foundationada marka la dhisaayo iyadoo la isticmaalayo reinforced concrete can be suitable solution okay inta balaca waxa dheeree lahayd adoo reinforced concrete adoo bir iyo shub fiican isticmaalo ayaa u noqon kara xal ku haboon yani caradaas awooda daran okay marka biraha shubka ayaa waxay siinayaan tensile strength okay midda kale hadaa section sameyno strip footing-ka waa qaabkan oo kale okay halkan marka darbiga ku yaal si hadaa u fiirido marka halkan darbigaadi waa okay kan marka waa wall okay marka markii la fiiriyo dabeecad ahaan marka waxay iska ag dhow yihiin kii oo isolated ka ahay okay isolated ka hadda hal column meeshan ku yaalo okay footing-kina waa kana okay so marka qaabka ay bending u sameynayaan ka sameeyeen oo labadooda bending ka saan u sameynayaan kanna bending ka saan ayuu ku sameynaa qaybtan hoose ayaa marka waxa ka develop garoobayo awood tensile ah kanna sidoo kale tensile waa so marka muxuu ku dhahay tensile strength-ka oo foundation-kada u yeelanayo ayay awood siinaysaa oo ay macnaha ay ka qayb qaadanaysaa inuu wanaagsanaado okay so sida daraadeed marka wuxuu ku dhahay structure-ka gabi ahaantiisba wuxuu awood u yeelanaa in stresses-ka iyo compression-kaba labadaba uu iska caawiyo compression-kana qaybta hoose ka dhacaa dabcan sida aad rajeynayso okay marka meeshaas waxay ka sameeyeen yihiin isolated footing-ka qaabka bending-ka uu dhacayo marka meelaha loo isticmaali karo maxaa kamid ah waxyaalaha qaarkoodna hadda fikrad waa ka haysanaa meelaha loo isticmaali karo waxa ugu horreeya strip footing waxaa la isticmaalaa markii aad haysato lighter type of walls yani culays yani khafiif ah darbiga qaadayo hadaa haysato way ku haboon yihiin yani biyaanooyin badan iyo waxa hadii meesha soo koraan ma ku haboono okay marka waxa waye darbiyo culays yar qaadaya hadii aad haysato kuwaasoo tagaya lagu dhahay ilaa foundation-kaada waxaa yani isticmaalin kartaa strip footing-ka marka darbiyadaas waxay noqon karaan masonry oo ah yani inaad blockade mid ku sameyso ama mutoni waxa la yiraahdaa block iyo brick loo yaqaana ama stone sidoo kale darbiyada concrete walls-kana waa looga dhigaa aas okay oo darbiyadaas hoostooda ayaa lagu sameeyaa strip footing nooca labaad marka maxaa waaye horatan usoo aragnay waa markii soil bearing capacity-gaada uu fiican yahay okay soil bearing capacity fiican hadaa haysato noocan foundation-ka aad uu ku anfacaa okay marka wuxuu ku dhahay width-ka iyo birta la isticmaali doonaba intaba waxay ku xiran tahay bearing capacity of soil okay meesha ma biro badan oo isticmaali doonaa width weyn oo isticmaali doonaa waxyaalahaas oo dhan waxa go'aamiya ciidda waa meesha saddexaad oo isticmaali karno waxa waaye ama aan adeegsan karno strip footing waa markii ay haysato darbi dheer okay مثلا tusaale yar hadaa kuu sheego waa boundary wall oo kale darbi meel lagu soo wareejinayo oo kale oo dheer okay xandaab oo kale ama retaining wall oo kale aa haysataa culays badanna marka ma qaadayo oo hadda boundary wall-ka oo kale hadda culays badan oo soo karaya ma jiro mana u baahnid markaas amaba looma baahna in la weyneeyo balaciisa okay marka kaliya waxaa ku qasban tahay inaad yani darbigaas hoostiisa ama darbigaas dhirirkiisoo dhan inaad la socodsiiso oo hoostiisa aad dhigto strip footing okay oo ku wada wareegaya darbiga oo dhan marka saaxiibayaal inaa isla fahnay ayaa rajeynayaa waana mahadsantihiin idil ahaantiin